بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسور هذا برنامجكي سؤالها الدينية وستة وصيد كيمانا استوديوها الشيخ محمد عمر الدير الكلية هي مساج كرشية مقالة هرقيسة برتمي هذا سؤالها ما أنت سؤال شكوباد حلي سائل كني salaada ciid haddii ay suurto gali weydo in lagu tukado garoomadii la isugu iman jiray guriga ma lagu tukan karaa sidee se loogu tukanayaa guriga su-aasha labaad wuxuu leeyahay saailka soo qoray waxaan nin askariya waxaan xidhaa had iyo jeer kabaha waaweyn ee qadha loo yaqaano bixintooda had iyo jeer dhibaata ayaa ka timaad marka salaada loo weyseysanayo ma masixi karaa oo sida shirabaadka iyo jawrabeynka waxa weeyaan ma loo masixi karaa loo masixi jiray markaa shirabaadada iyo khufka sidii loo masaxayo kale su-aasha saddexaad weydiiyahayna soo weydiiyey wuxuu leeyahay geela meelaha ku xeraysan ee aan foofin calafka lagu siiyo had iyo jeer ganacsiga loogu talagalay caanihiisa in laga ganacsado sakadu ma ka waajibaysaa su-aasha afraad saailka soo qoray wuxuu leeyahay waxaa jirta lacag hantiya oo aan mashruuc geliyey oo igu jirta mashruuc shaqaynaya lacagtaasi wixii ay soo saartay iyo qadarkeeda war kama hayo muddo sanad ka horena waan geliyey sidee markaa aan u sakeeyaa inaan faa'iideeyo inaan khasaareyna iima kala cadda su-aasha ugu dambaysa wuxuu leeyahay saailkeena soo weydiiyey waxaa jira lacag meelaha aanu ka shaqeyno waddannada gaaladan joogaa buu yihi markaa lacag baana laga gooyaa oo maalan hal gini baa layga jiraa buu yidhi shirkaddaan u shaqeeyaana hal gini bay ku dartaa dowladduna hal gini bay ku dartaa saddexdaa gini waxaa loogu talagalay markaan mutaqaacid noqdo ama howlgaba noqdo in markaa waxa weeyaan qofku wixii uu qaadanaya laga dhigo weli gacanteeda wax ku jirana maaha sidee loo sakeynayaa lacagtaas waxaanay soo gaadhay buu yihi ilaa 4,000 oo gini inay marayso sidoo kale maxaad ku talin lahayd sheekh lacagtaa ma inaanu qaadano mise inaanu iska dayno waana suurtagal buu yihi inaanu iska joojino wax nagu qasbayaa ma jiro kusoo dhow sheekh maxamed الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء ثم ما بعد صلاة عيد وصلاة سنة أضغة أما فرض الكفاية لبدا قول بواجران أقواش الحلحات كامر كانوا قادنو salaada haddii lagu tukan kari waayey cudurkan daraaddii si jamaca oo masaajidadii iyo fagaarayaashiia guryaha la iskaga tukan karayaa habka loo tukanayaana waxa weeye qofku inuu ururiyo ubadkiisa iyo ooriyihiisa iyo ehelkiisa inta guriga joogta ragga u horeynaya safka caruurta yareer baa ku xigaya dumarkuna xagga dambe marayaan salaadaasi salaadihii kale caadiga ahaa labada ragcadood la tukanayay ayuunbay la mid yihiin waxay dheer yihiin allahu akbarahan faraha badan oo ragcadda hore markuu qofku xidho wuxuu dabagelinayaa 7 jeer inuu idhaahdo allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka midii lagu xidhanayay mooyaane waa 7 kale ragcadda labaad markuu u soo kaco iyadana allahu akbartaa uu soo odhanaya markuu soo kacayo mooyaane 5 kale ayuu allahu akbar oranaya markuu istaago ayuu 5 jeer allahu akbar oranaya allahu akbaraha marka uu dhameeyo ragcadda hore faatixadii buu akhriyayaa iyo suurad ka dambaysa waxaana fiican suuradihii nabigu akhriyay inay noqoto sida suuratul a'la oo kale ama sabbix isma rabbika al-a'la oo ragcadda hore ragcadda labaadna markay allahu akbarahaas ku dhamaadaan ayaad akhriyaysaa suuratul ghaashiya ama hal ataaka xadiithul ghaashiya sidaasi ayay kugu dhamaanaysaa labada ragcadood takbiiraha badan weeye waxaana fiican inta ka horeysa marka subaxii waagu bariyo in takbiirta la iska akhriyo sida ilaahay buu subhanahu wa ta'ala walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun salaadii ka horba takbiirtii la akhriyaya nabiguna wuu akhriyi jiray sallallahu alayhi wa sallam mar hadii ay tahay ciidul fidr ee Ramadan allahu akbaraheedu waa intaa ka horeeyo allahu akbar ka dambeynaya ma jiro marka sidaas ay u dhib yar tahay wax dhiba aanay u lahayn
anas bnu malik oo ah asxaabigii nebiga calayhi salaatu wasalaam u shaqayn jiray xokeeyihiisa ahaa markii ay salaada ciidu dhaaftay ee jamaca lagu tukanayo ninkii addoonkiisa ahaa buu lahaa ina tuki gurigaanay ku tukadeen waana asxaabtii nebiga mana aha dadku inay yaabyaabaan oo ay u qaataan inaanay ka ansaxaynin salaada iyada ahe way ka ansaxaysaa kol haddii cudurdaar yimid cudurdaarkaa waa lagu xisaabtamayaa camalkiina iyo jamcii ballaadhnaana kol haddii cudurdaarkaa hor joogsaday ajrigii aynu ka helayna jamca ballaadhan ayuu baynu kan xaafaddana ka helaynaa insha allahu marka su-aashaasi jawaabteedu waa caynkaa su-aashan labaadee kabaha buurhka ama la masixi karaa ama kuwaan ciidanku gashan yahay dushooda haddii aada marka hore adigoo weyse qaba oo weysadii dhammaystay ku soo bilowday kolka dambeed weyse jabto intood qaarka kore weysaysatunbaa dushooda saa u masixi ilaa habeen iyo maalin 24 saacadood mar haddaad meeshaada degan tahay markuu qofku musaafir yahayna 3 maalmood iyo 3 habeen marka macnaheedu waxa weeyaan nidaamkii masixiddu ay lahayd iyo shuruudeedii haddaad marayso weyse qabaad ku gashatay kolka dambena waad masixi kartaa weysada ay kaa jabto waa inaanad sa bixinin dee habeenkaa iyo maalintaa haddaad doonaysa inaad bixiso waxa ka fiican inaad sharabaadada masaxdo oo markay weysada kuu dhammaato kolka dambeed weyse jabto qaarka koraad weysaysan sharabaadada dushoodaad masixi kabahana waad iska gashan marka shaygan la masaxayo muddadiisu si ay kugu sii socoto waa in aan la bixinin intaa muddada ah laakiin dushooda culimo badan baa waxay qabaan buurhka in la masixi karo iyo sharabaadada labadaba su-aasha saddexaad ee ah sekada ma laga bixinayaa geelan macluufada ah ama calafka loo dhigo ee xeryaha ku xaraysane caanaha laga soo liso waxaa la eegayaa wakhtiga ama sanadkii lasoo dhaafay inta badan haddii gacanta wax looga dhigayo la calfinayay seke ma laha laakiin muddada inta badan sanadkii hadduu daaqayay in koobanna la calfinayay sekada waa la bixinaya tusaale 7 bilood 8 bilood bannaankuu daaqayay 3 bilood meelahaana waa la calfinaya ama 4 bilood sekadii waa la bixinaya laakiin haddii 8 bilood ama wakhtiga intiisii badnaa gacanta wax looga dhigayay seke ma laha fudaydin dadka loo fududeeyey daraaddeed su-aasha afraad ee odhanaysaa mashruuc baan maalgeliyey khasaare iyo faa'iidana jawaab kama hayo sekadii ma lagu leeyay mashruuca ma lagu yeelanayaa mashruuca waa la eegayaa dee haddii uu yahay daaro la dhisay iyo waxyaaba asatahoo la maalgeliyey isagu seke male wixii dee ka soo baxa la sakeeyaa laakiin hadduu yahay ganacsigii la rogrogayay xoolaha waa lagama maarmaan in la xisaabiyo kadibna khasaariyo faa'iide aada ogaato wixii maalkaasi uu yahay iyadoo faa'iidadana lagu darayo qiimuhu maanta marayana alaabta lagu qiimeynayo waa in la sakeeyaa marka kolley waxay kaaga xidhan tahay habkaad u sakeynaysaa inaad xisaabta ogaato marka waa laga maarmaan inaad xisaabiso dadkii gacanta ku haya aada weydiiso ama adigu aad xisaabiso si loo xalaal miirto oo loo ogaado xaqa masaakiintu ay leeyihiin su-aasha shanaad ee sheegaysa waxaan la yidhaahdo taqaacudka ama fuluusa taqaacud lacagtan qofka u dhigmaysa beeshanka ah ma la sakeynayaa haddaad imika soo qaadan karayso oo adigu ikhtiyaarkaaga aad ku daysay kuu taallo waad sakeyn karaysaa laakiin haddaan imika lagu siinayno lala sugayo ilaa wakhtiga aad beeshanka gelayso oo aanad soo qaadan karaynin sakeyn maysid laakiin marka aad qaadatunbaad sanad sakeynaysa marka waxay la mid tahay deyntii maqnayd oo kale ee qofka la eegayo haddaad ka soo qaadan karaysana dee sekadeeda waad bixinaysa haddii qofka lagu leeyahay aanu ku siinayn inuu dafirsan yihi ama faqiir uu yahay hore waxaynu usoo sheegnay in marka la helo un sanad la sakeynayo marka midhkaasunbay ku xidhantay adaa ikhtiyaar kale haddaad qaadan karaysana sakee haddaanad qaadan karayn oon dowladda laga qaadi karayn ama sharkadda oo wakti lala sugayana ma sakeynaysid ilaa aada qaadato wallahu aclam sheekh maxamed ilaahi subxaana wa tacaala ka abaaliyo wuxuu leeyahy saa-ilkani waxaa jira dhul aan ugu talagalay haddii ilahay waxay soo geliya inaan dhiso haddii kalena aan iibiyo dhulkaa wax sakaamiyaa lagu leeyahay saa-ilkan wuxuu leeyahay isaguna su-aashayna soo weydiiyey maalka
dhaxalka loo soo joojiyey ee aan weli la qaybsan sakama lagu leeyahay su-aasha saddexaad wuxuu leeyahay saa'ilkiina soo weydiiyey waxaan ku noolahay wadannada reer galbeedka xaaskii baanu isla dhibanahay buu yidhi oo aan u maaro waayey haddii aan furi lahaana xoogay lacagtii meherkoo badnayd baan iska bixin kari laayacay hawl bay haysata sheekh maxaad igu nasdeexayn lahayd su-aasha xigta saa'ilkiina soo weydiiyey wuxuu yidhi waan ahay dirawal gaari wada dad baan u qaaday buuhi si tabaruco dar ilaahay ana wax nooli iyo lacag aan ka rabin gaadhigii isagoo aan dhicin meel gooladana aan gelin dhibaato kalena aanay soo gaadhin ayaa qof ka midii si dar ilaahay u dhacay haddii aanu soo degnayna qofkii waaba meyd oo nafi kuma jirto qofkaas magtiisii miyaa laygu leeyahay kafaara gudkii soonka ahaa ee 2 bilood ilaahay qur-aan ku sheegay isaga miyaa layga rabaa su-aasha ugu dambaysa qaybtaas wuxuu leeyahay saa'ilkana soo weydiiyey oo waxaa dhacda had iyo jeer dadka wakiilada ee meelaha joogay ee loo dirsado alaabaha lacag baa loo diraa alaabta ay ku soo iibiyaan iyo mid khidmo ah oo iyagu ay qaataan iyo mid nooli ay ka dhig alaabta nooli ay uga soo dhigaan dadka qaar ba waxay sameeyaan lacagta nooliga ah waxay sameeyaan iyagaa si kale ula heshiiya lacagtana way isaga shaqaystaan waana isloogyihiin iyaga iyo qolyaha shirkadda halkaasi laakiin miskiinkii halkan lacagta uga diray isagu waxa mooga isagana waxba loo qabsan maayo maadaama lacagtii uu diray lacagta nooliga ah ee ninkaasi uu ku shaqaysanayo dilaalka ah ama wakiilka ahi miyaa wax dhibihii uu ku jiraa sheekh maxamed alxamdu lilah dhulka uu qofku iibsado hadduu ugu talagalay inuu dhigto oo u yaallo ama ugu talagalay inuu dhisto sake ma leh laakiin hadduu ugu talagalay tijaara oo uu leeyahay hadda sii iibi kan meel kale ku iibi ama bagaash geli lacagtaa oo ganacsigii wareegayey niyaddiisu ay ahay ku tijaareeyo ku bacmushtaree wuu sakaynayaa siduu u sakaynayaana waxa weeye markaa wakhtigii uu iibsaday ee milkigiisa uu soo galay 12 bilood ka soo wareegaan buu dilaaliin u dirayaa waa la qiimeynayaa qiimuhu maalintaa marayaa buu ku sakaynayaa dhulku labadaa nooc buu noqdaa markaynu soo koobno jawaabtiisa su-aashan kale ninkan odaygii uu ka cabanayo xaaskiisa uu leeyahay way dulmiyeysaa dabcan dhinaca kale maynaan dhegaysanay dadka marka la dhegaysto waxaba laga yaabaa ka cabanayaaba inuu yahay ka wax cunaya ama isaga laftiisu wax dulmiyayo laakiin haddii ay dhacdaba qofku isagaa dee xora raggiina waa xor dumarkiina waa xor addoonsi ma jiro sidaa daraaddeed labada qofba sharcigu wuxuu faraya inay si wanaagsan u wada joogaan dumarkana ilaahay wuxu uhi wacaashiruuhunna bilmacruuf si wanaagsan ula jooga oo ula dhaqma raggiiyo dumarka ayaa ilaahay markuu ragga la hadlayay buu dumarka si wanaagsan ula dhaqma dumarkiina waxaa la faray inay arrinkeen noqdaan oo arrinka aqbalkeen noqdaan arrinka wanaagsana ninku keeno fasaalixaatu qaanitaatun xaafidaatun lilgeyb mid waliba inuu doorkiisa qaataa laga maarmaana marka ama wada joog wanaagsan ama kala tag fiican sharcigu halkaasuu ka taagan yahay marka waxay ku habboon tahay haddaad dibadda joogto waddamada gaalada waxaa jira maraakiz ama xarumo culimada islaamku ay fadhiyaan oo qoysaska mushkiladooda ay dhegaystaan oo ka khaldan ay u sheegayaan khaladkiisa ku dhexdhexaadinayaan ay sulux ku galayaan marka waxaynu tilmaami lahay inay halkaa tagtaan si la idiin kala saaro oo qofka wax dulmiyaya ka kale loo sheegay iyo xuquuqda ay leeyihiin labada qofba su-aasha sii raacda ninka sheegay in gaadhigiisii qof ka dhacay dembi ma laygu miyuu dembi fuulaya kafaara gudsa miyaa la igu yeelanayaa mag miyaa la igu yeelanayaa waxyaabahaas oo dhan waxay la xidhiidhaan miyaad xadgudub samaysa qofku hadduu xadgudub sameeyo oo waxaan markaa hore inuu sameeyo aanay ahayn hadduu falo talan gaarigu dee si aan caadi ahayn u eriyo meeluu jiirhsiiyey kadhada ah ama wax ay ahayd inuu sameeyo aanu samayn oo dee gaariga ilaalintiisii iyo hubintii iyo taayiradii gaabis buu sameeyey labadaa haddii aan midna jirin oo qofkan adigu aanad sabab u ahayn inaad tuurto oo daralla u dhacay waa laga yaabaa mararka qaarkood in lagu yeesho marna aan lagu yeelanin taasi waa xagga magta laakiin dilkaa isaga camdi noqon maayo khata buu noqonayaa kafaara gudkiina waa lagu leeyay 2 bilood inaad soonto
waxa kale oo ay noqonaysaa xagga dembiga mar haddaanad u kasin oo camdi aanad qofkan u dilin dembi ma lihin oo qofkii waa khada hadduu yahayna magta tolkaa lagu yeelanayaa qofkiina kafaara gudkaa lagu leeyahay dembina ma lihin qofku waxaan markuu camdi u sameeyaabuu aafim noqdaa dembiile noqdaa marka saasaa loo kala qaadaya wallahu aclam su-aal baa halkaa inooga hortay sheekh maxamed uu leeyahay saa'ilku qofka qof wakiisha lacagtii nooliga si ugu shaqaysta ama iyadoo aan maaragtay la isla ogeyn oo kale lacagta marka qof loo dhiibee la yidhaahdo wax ku soo iibi inuu ku shaqaysto maaha hadduu ku shaqaysto isagoon ka idan qaadanin qofkii lacagtan lahaa khiyaamay noqonaysa wuxuu doonaya inuu isticmaalo lacagti isticmaalkaasi wuxuu ka dhigayaa amaah buu ka dhigayaa hadduu amaah ka dhigana dee hadday lunto isagaa lagu leeyahy marka qofku inuu wax khiyaameeyo maaha kol haddii la aaminay alaabtan wax ku soo iibi hadduu doonayo inuu kusii shaqaysta ha amaahdo ha yidhaahdo qofkii ilaa intaan wax kugu soo iibinayaan ka faa'iidaysto hadduu laakiin isticmaalo khiyaamay noqonaysaa wixii ka soo baxee faa'iidaana qofkiibaa leh usoo dhiibtay wallahu aclam jasaaka allahu khayr sheekh maxamed saa'ilkani wuxuu leeyahay haddii ama waxaa dhacday buhi laba nin oo walaala baa dhul isa siiyey mid ka mida markii dhulka bixiyey ama kii dhulka la siiyey baa muddo kadib dhintay caruurtii oo dhulkii dee aabbahood u hadhay baa adeerkood oo ninkii dhulka bixiyey ahaa uu yihi dhulkii waan la noqday arrintaas ma sax baa dhulkaa u la noqon karaa ninka odaygiihi mise waa dhaxalo waxa dhexlaya markaa ninka marxuumka ee dhintay ubadkiisii su-aasha xigta wuxuu leeyahay saa'ilkeena soo weydiinaya waxaa dhacda caruurtu had iyo jeer ama dhalinyaradu in waalidka ay waqtiyada qaar ku yar dhaga adkaadaan oo hooyadu waxay u diraysaay iyagoo ama ciyaariya wax kale isku mashquulinaya arrintaas ma lagu tirin karaa inay caaqnimo tahay iyo waalidkii oo caaq lagu noqday su-aasha xigta wuxuu leeyahay alaab baan masalan iibiyey oo $500 alaab baan ku iibsaday anoo waddan kale jooga ayaan telefoon alaab ku iibsaday alaabtii baan isla markii lacagtii aan ku iibsaday lacag ka badan dib ugu iibiyey iyadoo dayna oo markaasi aan sidaa u kala bedelay arrintaas shareecada islaamku maxay ka qabtaa su-aasha xigta weydiiyahayna soo weydiiya wuxuu leeyahay waxaa jirta dhaqan ah qofku markuu dhinto in geerida ay isugu soo ururaan dumar fara badani oo muddo 3 maalmooda la joogo oo la yidhaha gogol baa la laabaya oo waqtiyada qaarna reerka waxooga kaalmiyo wax loo keeno arrintaas isku ururkaa la isku soo ururayo iyo gogosha ay dumarku sheegaan waa la laabaya ay leeyihiin iyo shareecada islaamka halkay ka taagan tahay su-aasha ugu dambaysa su-aalaheena aynu kusoo khatimayna wuxuu leeyahay saa'ilkeena soo weydiiya waa ruux dumara odaygii baa iga xanuunsanaya xanuun waali uu ku dhacay muddo 5 sano ah caruurta tarbiyantoodiina reerkii way igu saacidi waayeen oo dhib baan kala mutay waxaan go'aansaday markaa inaan nin kale iska guursado ninka waalan dalaaqiisa ama furiinkiisu ma dhacaya oo nin kale inaan guursadaa suurtagal may ii tahay fadal sheekh maxamed su-aasha hore qof dhul bixiyey ayaa kii uu siiyey markuu dhintay dib ugu noqonaya waa xaaraan xagga sharciga nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi qofka intuu wax bixiye ku noqonaya wuxuu la mid yahay ay hunqaacay oo hunqaacadiisii dib u cunay foolxumaday leedahay waad garan karaysa iyaday xaaraan tahay haddii marna wuu ku noqon karaa marna kuma noqon karo macnaha waxaan ujeedaa mar ma yeelanayo ma qaadan karo marna wuu qaadan karaa laba jeeraba se waa xaaraan haddii shaygan uu bixiyo aanu wareejinin oo weli gacantiisa uu ku jiro oo uu la noqdo wuu qaadan karaa oo dee lagama guddoomanin sharci ahaan laakiin xalaal maaha haddii laga wareejiyo qofkan uu siiyey uu kala wareegayna inuu ku noqdaano waa xaaraan kamana soo ceshan karo warkaas saasuu ku cad yahay qofkuna wixii uu bixiye inuu ka daba taga maaha su-aasha caruurta aan waalidka maqlayn waalidka in la maqlaa waa waajib wixii macruuf ahee samaahee diintu ogoshahay in lagu adeeca waa faral qur-aanka iyo xadiidkuba aad bay uga hadleen marka da-yarta waxa waajib ku ah si iyagana caruurtoodu aanay caaq ugu noqonin oo ay u adeecaan
inay waalidka wixii wanaagsan u soo jeediyo marka uu dhaa waxaa yeel wax diin iyo dunyaba ku fiican inuu ka tala qaato salaadaa sunnaha isagoo ku jira haddii aabbihii u yeedho ama hooyadii u yeedho sunnaha waa inuu ka baxaa oo waalidka uu hoo yidhaahdaa halkaasay arrintuba taaganta in la iska warwareego la iska ciyaarana hadalkeeda daa cuquuqa ama waalidka oo caasi lagu noqdaana waa mushkiladaha iyo musiibooyinka aakhiru zamaanka soo kordhaya siduu nebigu sii sheegay sala allahu calayhi wasalam an talida alamatu rabbataha waxaa dhici doonta buu ihi addoontu inay sayidkeedii dhasho waa ilmo waalidkii u talinaya oo amraya su-aashan iyaduna odhanaysa haddii aan qof alaab ka iibsado telefoon ma ku sii iibin karaa ilaa aada la wareegta maya qofkii alaabtii waa kala iibsateen de waa inaad u dirataa cid kale wakiilkaa ah oo qofkii ka soo guddooma alaabtii hebeloo imisaad iga siisay intaa hebel baa iga wakiilehe iigu wareeji markuu la soo wareego kii kuula soo wareegay baad leedahay haddana hebel baan intaa ka siiyey ku wareeji intaasay ku simanta waayo shayga sharcigu ma ogola nebiguna wuu diiday inuu ilaa uu qofku la soo wareego wixii uu iibsaday inuu sii iibiyo milki taami ma jiro oo milkiga weli ma dhammaystirmin jeerood soo guddoomantood la soo wareegto marka meesha waxaa ka maqan inuu qofkii la soo wareego marka waa inaad wakiil samaysataa kana ka wareejiya kaad ka iibisayna kusii wareejiyo sidaasaa loo saxayaa markaa wixii faa'iideed saaraysaana waa halkeeda arrintan dumarku inay tacsida ku soo ururaan waa la soo booqan karaa qoyska marka geeri ku dhacdo waana la samirsiinayaa siduu nebiguba sala allahu calayhi wasalam uu u lahaa jacfar ibnu abi aalib markii uu shahiiday ehelkiisii raashinka u kariyo saacida buu lahaa wax mashquuliyo geeriyabaa u yimide ayaa ku dhacee marka waa la caawinayaa adduun baa la siinayaa gurigaa laga hagaajinayaa qalbigaa loo dejinaya waa la samirsiinaya waa la waaninayaa inahaas waa sax laakiin in la dul fadhiyo intaasoo maalmood tusbaxyo waaweynna la rido xoolo badanna la cuno qaarkoodna qayalaal baa ku daraan qaarkoodna xoolihii agoontaabay cunaan waxaasoo dhan waa xaaraan marka waxay ku fiican tahay in lagu daayo uun intii nebigu sameeyey sala allahu calayhi wasalam laakiin wixii caawimo ah qoyska la siinayo waa la ogolyahay dhibna ma laha arrimaha kalun baa laga daynaya su-aashan odhanaysa ruuxa dumarka ay leedahay ninkaygii baa waashay caruurtiina ilama daryeelaya cid kale oo ehelkiisiina ilama daryeesho oo ilama masruufto o ilama koriso xalku muxuu noqonayaa xalku waxa weeye haddii aada samri kari weyday oo aada sidaa ugu dul qaadan kari weyday waxaad tegaysaa maxkamadda meesha aada joogto cidda rag iyo dumarka u kala farsamaysa ee dadka muslimiinta u fadhida iyo maxkamadda degmadaad tegaysaa markaa iyagaa kaa furi karaa oo fasakhaadda samayn karaa waayo adigu isma furi kartid qaadi ninkan waalanina mar haddii aanu miyir qabin waxba ma furi karo marmaruu dee caafimaado way dhici kartaa mar uu caafimaado miyirkiisu usoo noqdo wuxuu u furi karaa laakiin intuu waalida ku jiro ma dhacayso dalqadiisu adigiina samri kari weyne xalku waxa weeye qaadigaad ashkatada gaadhsiinaysaa dalabkaa fasakhaad qadimaysaa sidaasaa lagaaga furayaa oo qaadigu kaaga furayaa haddii aad samri kari weydo wahada ma aquluhu waastaqfir اllah wallahu subxaanaه watacaala aclam sheekha ilaahay subxaanaه watacaala ha barakeeyo innagana ilaahay subxaanaه watacaala inagu anfaco intaa waxaynu kusoo gebagabeynaa guud ahaanba su-aalihii diiniga ahaa ee bisha rabadaan ka socday masaajidka ilaahay subxaanaه watacaala sheekha waxaynu uga baryaynaa inuu ilaahay subxaanaه watacaala dembigiisii kii waalidkiiba u dhaafo cilmiga iyo cimrigana ilaahay subxaanaه watacaala u barakeeyo waxaa kaloo inuu ducaynaynaa howlwadanadii barnaamijka ee kala duwanaa ee ka qaybgelayey bahda masaajidka daawadayaasha barnaamijka la socday gudayo dibadba iyaguna kala socday ilaahay subxaanaه watacaala inoo wada dembi dhaafo bisha rabadaan khayrkeedana hayna siiyo waynu isku soo ducaynaynaa wajazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu